السلام عليكم داوديال وبوليموج جنرال uga baratay inuu halkan idin ka soo gudbiyo dhacdooyinka dunida ee markaa taagan iyo warar xiiso leh. waa maalinimo talaada bishu tahay 14 May 2020 waxaanu hadaba idin helnaa wararkeena ugu waaweyn dalalka Yurub oo sida xun u galay ama uu saameeyay COVID-19 ama coronavirus cudurka ayaan waxaan idinka siinaynaa warbixin wadamada safka hore kaga jira. haddaba sidaynu hore u ogeyn dalka Talyaaniga oo ahaa dalka isaga ugu saameynta badan ayaa waxaa ka sare maray dalka Spain oo la soo sheegaya in tiradu gaarayso in ku dhow 180,000 oo dadka uu saameeyay halka uu Talyaanigana uu ka maray 160,000. haddaba waxaa iyagana ku soo biiray wadamada uu sare u kacay saameyntooda dalka Jarmalka oo laga soo sheegay inuu gaarayo ku dhawaad 130,000 oo qof iyadoo dalka Faransana ay lagu qiyaasay tiro 100,000 ku dhawaad halka Ingiriiska uu gaarayo 90,000 iyadoo la sheegayo tiradii sare u sii kacaysa dalka UK inay hoos u soo dhacday. haddaba waxaa kaloo iyadana jirta dalka wadamada Yurub ka mid ah oo la yiraahdo Austria inay ku soo habsatay shaqo la'aan aad u baahan taasoo la sheegaya in 66% dalka Austria ee shaqo la'aan ku dhacday taasoo la leeyahay waa markii labaad oo dalkaas uu soo maray shaqo la'aan baaxadeedu intaas leegtahay iyadoo la sheegay waqtigii ugu horeeyay ee tan oo kale ku dhacay dalka Austria oo ahaa dagaalkii labaad ee dunida taasoo ay la soo gudboonaatay shaqo la'aan sida tan oo kale ah. haddaba shaqo la'aantan ku baahday dhammaan dunida ayaa waxa uu sababay cudurka la yiraahdo COVID-19 ama coronavirus oo dhammaan si aad u baahsan ugu fiday dunida oo dhan isaga oo gaaray in ka badan 130 dal oo ku yaala 5 qaaradood ee dunida ilaa hadda cudurkan oo aan loo helin wax daawo ah ama ka hortaga ayaa waxa uu yahay dawada kaliya ee lagaga badbaadi karo in dadka gurigooda joogaan. waxaanu kaloo idin helnaa dalka Uganda madaxweynaheeda Yoweri Museveni ayaa waxa uu horay ugu soo rogay dalka Uganda bando 15 cisho ah taasoo ku ekeed maanta oo 14 bisha ayaa waxa uu qabtay shir jaraa'id taasoo uu ku soo saaray inuu sii kordhiyay bandowgii oo ku daray 21 cisho iyadoo lagu ekeysiinayo bisha soo socota ee May 5 isagoo oo yiri waxaanu taa u yeelaynaa badqabka iyo caafimaadka dadkeena iyo dhaqaalaheena. waxaa dalka Mareykanka laga soo sheegayaa cabsi ama walaac aad u xoogan xaafadda Soomaalida ee deganta ama gobolka ee Soomaalida ku badan tahay Minneapolis gaar ahaan Minnesota ayaa waxaa laga soo sheegayaa in degmada Ramsey iyo Seattle ay ku nool yihiin dad ka badan 7,000 oo qof oo degan guryaha dabaqyada dhaadheer ee loo yaqaan skyline kuwaas oo kala degan labada degmo ee kala ah Seattle iyo degmada Ramsey dadkaasoo guryaha dhaadheer oo lagu magacaabo Sky ayaa waxa laga cabsi qabaa ayaa la yiri in uu haduu ka dilaa cudurka coronavirus ee noqon karto musiibo aad u weyn oo aan waxba laga qaban karin iyadoo lagu qiyaasay intaasi ay la mid tahay markabkii ay dadka faraha badan saarayeen ee bishii tagtay in soo ku wajahnaa dalka Australia markab dalxiis oo dad badan sidaa wax ku yeeloobeen. haddaba waxaa dalka Soomaaliya idinka helnaa war ku saabsan isagana wasiiradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya wasiirad Fawziya Abikar ayaa waxa sheegtay in la helay amaba ay gaarayso tirada dadka qaba cudurka coronavirus 35 qof iyadoo ay xaqiijisay in uu yahay kiisas kuwa aad u sii kordhaya waxaana ay dadka ugu baaqday inay guryahooda joogaan iyada oo sheegtay waxaanu haynaa inuu yahay cudurkan aynu dadka ka hadlay oo tiradiisu gaarayso 35 qof inuu yahay coronavirus-ka dunida aadka ugu habsada oo dilaaga ah oo sida aynu aragno wadamada Aasiya waqooyi iyo Yurub iyo Ameerika sida uu dadka u galay. haddaba waxaan dadka Soomaalida aan farayaa inay guryahooda joogaan oo ku taxadarnaadaan si aan ugu fidin cudurkan dunida intiisa kala soo baabi'iyay. waxaanu kaloo idin haynaa daawadayaal hay'adda NASA ayaa waxa ay soo bandhigtay barnaamij ay sheegayso inay kaga hortagayso dhagaxa la sheegay inuu ku soo dhacayo dunida waa sida iyagu hadalka u yiraahdeen bisha tan ee ku jirno 24keeda. haddaba waxa ay NASA tiri waxaanu diyaarinay qorshe lagaga hortagayo dhagaxaas inaanu dunida soo gaarin iyada oo tiri waxaanu ku maalgelinaynaa barnaamijkan adduun dhan oo gaaraya 125 milyan oo dollar oo wax lagaga qabanayo si aanu dhagaxaas dunida ugu soo dhicin.